Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga kusoo dhawaada channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka Mema Cooking and Sweeties waa walaashin Mema oo idiin wado muuqaal cusub fadlan haddii aad channelku cusub tahay subscribe saar haddii aad hore inoola joogtay qaybta commentiga laga arko fadlan like saar muuqaalka waayo like waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro sidoo kale share asxaabtaada la wadaag haddii aad wax araha qabto qaybta hoose ee fariimaha igu soo reeb waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan maanta waa maalintii saddexaad inkastoo aan idinka soo daahay haddana waxaa waaye weli waxaan ku guda jirnaa ciida waxaan rajeynayaa dhammaantiinaba inaa si wanaagsan u ciideen inkastoo walaalaheena muslimiinta ee reer Falastiin aanun ciidin oo dhibaato dagaalo kala socdaan cadawga Ilaahay ka qabto oo yahuud gumaysanayso insha Allah aan wada duceeno anagana soonka aan soo soonnay Ilaahay naga aqbalo dhammaanteenaba waxaan soo diyaariyay macmacaankii ciida aan ugu talagalay oo ay diyaarsanaa sida ujeedaan saxamo badan ayaan ku soo diyaariyay sidoo kale cabitaanadii qaxwadii dhamaantoodaba halkan waxa igu jiro buskud laba nooc ah oo aan soo sameystay sidoo kale halkan waxa ku jiro xalwadii oo jarjaran ayadana halkan sidoo kale waxa ku jiro doolshadii oo aydan way jarjaran tahay laakiin ma dareemi kartaan u maleynaa dad si fiican u eegtaan laakiin waa fahmeysaan waa ka doolshadii ayadana maasha Allah waxaa loogu talagalay ciida anaga hadii aan Soomaalina waxyaabo badan aan isticmaalno buskudka iyo xalwada iyo doolshada ayaa kamid iyo waxyaabo badan sida sisinta adiga inta laguma soo koobi karo aad u badan yihiin buskudka waxa way laba nooc ah ugu talagalay inaan soo sameysto waa ka ujeedaan halkan waxa ku diyaarsan shishumo balbalo iyo cun yaa ujeedaan sisintii halkan waxa ku diyaarsan waxa waaye qaxwadii lagu cabi lahaa oo aan sokor zaid ah lahayn aan u diyaariyay waay macmacaanka asaga sokortiisu aad u badan tahay haddii waxyaabo macmacaan isticmaalaysid waxa wanaagsan qaxwadaada ee sokorta zaid ku aheenin ama u diyaarisid sokor si qof allaala qof kale ugu darsado dadka qaarna sokor ma jeclaba oo ku darsadaan haddii ay macmacaan isticmaalayaan oo waxay jeceliin qaxwo aan sokor laheenin marka waa ka halkan waxa u diyaarsan bakeeriyadii lagu cabi lahaa qaxwadii oo ilaa 6 bakeer ka kooban inta dad imaanaya markaas ma aanan qiyaasi karin laakiin waxun ayaa iska sii diyaarsaday ma ogtiin maalmaha ciida guryaha dad u soo ciideysanayo xaafado kale kaaga imaanayo maasha Allah farxad kula wadaagayo oo nala soo koobi karin run ahaantii anigoo kala guriga badanaa kama baxo maalmaha ciida waayo xoogaa martida iska badan maasha Allah oo farxadiina nala qaybsadaan inoo soo ciideysanayo siiba ilmaha Ilaahay dhaafee marka waa ka halkan waxa ku diyaarsan cabitaankii aan u qasay oo ugu talagalay oo caanaas ahaan ayaan u qasay waxa ugu talagalay dadka u baahan inay cabaan oo qaboob ah halkan waxa sidoo kale ku diyaariyay biyo caadi xitaa waan diyaariyay oo aan ugu talagalay halkan ay ku jiraan oo qof alaal qofkii aan u baahnayn cabitaan ama qaxwo inuu iska cabo inta ka badan lama sii sheegayo muhiim way tahay inaad tiish la isticmaalo sidoo kale istakiin qof dadka qaar u baahan iyo waxyaabo carfis ah marka waa ka asxaabta qaaliga ciidan waxay ahayd ciid aad u farxad badan oo aanan ruuxantii halkan lagu soo koobi karin maasha Allah intii aanan ciidin ee dhibaatada ku sugan Ilaahay ka dulqaado annagana farxadii aan ciida ku ciidnay Ilaahay inoo sii ziyaadiyo gadaasheedan waxa waa Ilaahay farxado badan ha inoo siiyo insha Allah sida idin hore kuugu sheegay macmacaanka waxa waaye anaga Soomaaliya nahay xalwada iyo buskudkii number 1 ee inoo yihiin Soomaan buskudka iyo xalwada guri walba laga helaa halkanna waxa ku jiro kashaato sisin balbalo iyo cun hooseeyo marka waxa waaye intaasna anaga hadii aan Soomaalinahay aad u isticmaalnaa waxa waaye macmacaankan waa macmacaanka Soomaalida ay caan ku yihiin inay isticmaalaan xilliyada ciida oo kale inkastoo ay jiraan macmacaan badan oo la isticmaalo oo yaani dhaqamo kala dalal kale ay leeyihiin haddana anaga Soomaaliyeed waxyaabahan ayaa caan ku nahay oo aan isticmaalnaa xilliga ciida markii oo la gaaro markii yaani marti aynu imaado oo kale waxyaabahan ku soo dhaweeno oo ay fast ka yihiin waaye dhaqan ahaan aan u leenahay hadii Soomaalideena aan nahay inkastoo dad badan ay jiraan oo aan jeclaynin macaanada kuwa dalka oo kuwa dibadda xiiseeyo haddana waxa waaye ma badna laakiin anaga Soomaalideena
yaa inta dhaqanka heysata badankooda macmacaanadana isticmaalnaa ciid hadii la gaaro mar walbo dhaqanna weynooyin dabeecadna waan ka dhiganay oo waxaa waaye wax walbo anaga aan sameysanayno gacanteena aan ku sameysano dhaqan aan u leenahay waaye waa fahamteena uma leena qof looga sheekeyna ayaanba jirinba oo guri walbo oo ciid ah ama marti marka imaado kale waxyaabo badan la isticmaalo waa macmacaanadan anaga aan sameysano hadii aan nahay Soomaalideena oo aan anaga maasha Allah gacanteena ku sameysanaa dhaqan ahaana waan u leenahay taana lagama sii sheekeynayo cid walba way garanaysaa maasha Allah marka ciidaneet waxa waaye inkastoo dad badan jiraan oo magaalada jecel inay u ciideystaan laakiin aniga qaasatan guriga iskaga ciida maxaa yeelay martida imaanayso iska badan tahay laakiin markii ciida laga baxo 2 maalin kadib ama 1 maalin 3 maalin kadib oo kale aan jeclahay inaan magaalada aado markaas jawi degan magaaladoona buuq aanan ka jirin iskaga soo ciido iskaga soo damaashaado inkastoo magaalada iska dhib badan tahay maalinta koowaad ee ciida waxa laga yaabaa in xitaa wadooyinka ay jaam yihiin ama in la xiro oo dabeecad ahaan anaga hadii aan Muqdisho ku noolnahay waa un iska sidaas idinkana waa la socotaan laakiinse maasha Allah wax walba oo wadankeena uu yahay waan ku qanacsanahay alxamdulillah eebahay noo siyaadiyo nabada dad waxa jiro inta aan anaga heysano aanan haysanin intaan waa alla mahadi waa inaan Ilaahay ku shukrinaa alxamdulillah aan dhahnaa mar walbo waxa waaye farxadana waxa waaye ciida way iska badan tahay kaliya ma aan in meel loo dalxiis tago xitaa gurigaaga farxad ku sameysan kartaa gurigaaga marti ku casuumi kartaa wax walba sameysan kartaa maasha Allah marka Soomaalideena waxa aad iyo aad aan u faanaa aad iyo aadna noogu weyn dhaqankeena iyo waxyaabaha ciida macmacaanada aan isticmaalno sida hadeerba u jeedaan oo kale macmacaankana aan isticmaalnaa anaga oo ka kooban doolshada iyo buskudka xalwada iyo waxyaabo kale oo badan oo macmacaanada dhaqankeena ah ay kamid yihiin siiba doolshada iyo buskudka fast inoo yihiin xalwada ma ka marno xalwadana Soomaalideena aad iyo aad ay u isticmaalaan waxa kale ka marneenin idin sheegay buskudka iyo sisinta balbalowga shushumowga iyo cunka iyo sidoo kale kashaatada intaas waxa waaye Soomaalideena waa macmacaanada mostly ama badana ay isticmaalaan anagana Soomaaliya leebanahay Soomaan mana laga weynaay waxyaabo kale macmacaano kale waa sameysan kartaa hadii aad xiiseynaysid ama aad jeceshahay kuwa dalkeenaba ka sii fiicanba asxaabta qaaliga dadaal walbo la sameynayo waxa uu sameynayaa sida idinka amar walbo maadaama aad tihiin dad igu xiran aan u soo gali lahaa waxyaabo badan oo idin xiiso galiyo hadii ahaan lahayd cunooyinka kala duwan kuwa dalka iyo cunooyin kala duwan aan caadi ahaan u isticmaalno iyo macmacaankaba maadaama ciid ay ahayd macmacaanka ciida aan ahaan shakhsi ahaan u isticmaalay ayaan idin la wadaagay idinkana isticmaashaan oo sidaan hore idinku sheegayba dhaqan ahaan aan u leenahay macmacaankanina waxa waaye mar walbo martida ciida wax walbo farxad ah waa loo isticmaalaa kaliya ciid kaliya looma isticmaalo intaasna waa wada ogtihiin marka waxa idin leeyahay meel walbo adduunka ka joogtaan mar walbo aniga waxaan rajeynayaa in farxad ku noolaataan ciidan waxaan rajeynayaa in dhamaantiin si wacan u ciideysateen intii waxa waa waqtiga uu ka heliyay aanan ciidin waxaan uga baryayaa in uu waqtiyada kale soo socdo ciidaha iyo quruxda badan oo wanaag iyo insha Allah ay la kulmaan oo farxadeedo ay dib u helaan dhamaantoodaba qof walba muslim ahna waxa waaye waxaan rajeynayaa inuu qalbigiisa lagu qaboojiyo dhibaatada haysatana dhamaan uu ka dulqaado anagana baa inaga kuwii mar walba waxa waaye isku duceeya xitaa de isgarab sii karaan garab is siiya kaliya waxa waaye adduunyadan ayaa waxaan ku nahay dad walaalo ah idinkan waxa tiin dadka wada aan ku wada kulanay marka dhamaantiinaba waxa idin leeyahay waxa idin rajeynayaa caafimaad iyo insha Allah ina dhamaantiinaba caafimaad qabtaan waxaan kaga tagayaa amal suuban iyo cibaado suuban waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan caafimaad ayaan rajeynayaa